بسم الله الرحمن الرحيم. انت aanan ka hadlin qeexideena kooban ee maanta midaas oo ah social business waxaan rabaa inaan halkan mahadcelin ka jeedino annagoo ka duulayna xadiiskii rasuulka calayhi afdal salaatu wa atammu tasliim ka sugnaaday ee ahaa man laa yashkuru nnaasa laa yashkuru allah. marka mahadcelintan waxa ay ku socotaa ustaad axmed kadiye oo dadka la wadaagay channelkeena Kobciso Academy kana codsaday inay subscribe dhahan. waxaana sidoo kale u mahadcelinaynaa intii ka soo jawaabtay kana soo jawaabi doonta codsiga ustaad axmed kadiye. oo waxaan leenahay jazaakumullahu kullal khayr. ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa wax un inaad ka macaashtaan aqoonta aan halkan idinkula soo wadaagno. markana aan u soo laabano erebixinteena maanta ee ah what is a social business. haddaba social business ama ganacsi bulsheedka waa qaab casri ah ee loo aasaaso ganacsiyada. waana ganacsi la aasaaso ama la hirgeliyo ayadoo laga tarjumayo ama laga duulayo baahida haysata ummadda meesha degan. ogowna ma ahan ganacsigan mid sadaqa ah ee waa ganacsi soo saara faa'iido lacageed sidoo kalena ha qabtira baahida ummadda haysata. halka ganacsiyadii hore ay xoogga saari jireen sida ay ku ballaarin lahaayeen faa'iidada ay u soo saaraan milkiilayaasha ee loo yaqaano maximizing shareholders wealth. balse social businesska faa'iido soo saarka ka sukow waxaa u sii dheeri ah in ummadda ay faa'iido adeeg ama badeeco ay hesho oona la gaaro waxa loo yaqaano win-win situation, midaasoo ah aan wada guulaysano. si kale haddaan u dhigno ganacsiyadii hore waxa ay xoogga saaraan sidii ay milkiilayaasha ku heli lahaayeen faa'iido lacageed oo badan, halka social businesska uu midii hore ee faa'iidada ahayd ku biiriyey ama ku kordhiyey in sidoo kalena ay ummadda helaan faa'iido adeeg ama badeeco. haddaad rabtid inaad xog dheeraada aad ka heshid social business fadlan dhegayso nuxurka buwaagta khaasatan midka shanaad oo aad lifaaqa hoose ka heli kartid. haddaan markana aan isla aragno tusaale, bangiyada caadiga ah waxa ay xoogga saaraan sidii ay milkiilayaasha ama shareholders ay ku heli lahaayeen faa'iido lacageed, halka haddii si sax ah loo hirgeliyo microfinanciga ay noqonayso social business oo ay ummad badani horumar gaari karto, sidoo kalena ciddii hirgelisa ay faa'iido macquul ah ka soo saari karto. markana aan isla aragno sifooyinka ugu muhiimsan ee lagu yaqaano social business. 1. clear social mission, waana lahaanshiyaha hadaf bulsho oo cad. tusaale, Dr. Maxamed Yunus marka uu yegleelayay ama aasaasayay Qaraamin Bank, hadafkiisa waxa uu ahaa sidee ummadan faqriga ku jirta looga soo saari karaa intii karana. xog dheeraada oo ku saabsan microfinance ee Qaraamin Bank fadlan ka dhegayso lifaaqa hoose oo aan hadda koor kaga soo hadalnay. ogowna Qaraamin Bank faa'iido ayuu soo saaray, sidoo kalena shaqadan aawadeed Dr. Maxamed Yunus waxa uu ku guulaystay Nobel Peace Prize-ka maadaama ilaahay sabab uga dhigay in ummad malaayiin gaaraysa uu ka soo saaro faqriga ilaa ay ka mid noqdaan milkiilayaasha bangiga. waana bangi aan isleeyahay ciddii danaynaysa in aqoonta microfinanciga ay sare u qaadaan, sidoo kalena danaynaysa in ummadda faqriga maaliyadeed laga saaro inay wax ka baran karaan bangigan. sidoo kalena waxaa laga rabaa dadka mas-uuliyiinta ah inay fiiriyaan sidee looga dhaqangelin karaa bangigan waddankeenna, balse waa haddii daacad laga yahay in ummadda dhibaataysan loo adeego. 2. financial sustainability, gaaridda xasilooni maaliyadeed, oo waxaa la rabaa ganacsigan bulshada ah inuu faa'iido soo saaro iyadoo sidoo kalena laga tarjumayo baahida ummadda. tusaale, Qaraamin Bank sidii aan ka soo hadalnay waxa uu gaaray inuu faa'iido soo saaro
ilaa ay macaamiishii ka mid noqdaan milkiilayaashii bangiga. intaasna waxaa sii dheer in bangigan laga aasaasay shirkado fara badan ee fadlan ka dhigayso nuxurka buugga shanaad. 3. Ethical business practices. waxaa laga rabaa in ganacsigan bulshada uu ku howlgalo anshax wanaag iyo ilaalinta cimilada. tusaale, shirkadaha laga aasaasay ama ay horseeday Qaraamin Bank waxaa ka mid ah Qaraamin Shakti oo ah shirkad bixisa adeeg koronto oo nadiif ah iyadoo la adeegsanayo solarka si loo ilaaliyo hawada oo aanan dhib dheeraada loogu geysan cimilada iyo nafteen intaba. sidoo kale shirkadan waxa ay adeegan korontada ku bixisaa qiimo jaban. 4. Focus on impact. ganacsiyada bulshada si ay u ogaadaan waxqabadkooda waxa ay adeegsan karaan waxa loo yaqaano Key Performance Indicators ee loo soo gaabiyo KPI. midaas oo ah halbeeg ay ku cabirayaan waxqabadkooda, sida inay fiiriyaan meeqa qof ayaa dhibaatada maaliyadeed laga soo saaray oo heerka noloshooda ay wanaagsanaatay. oo waxaa la rabaa in ganacsi waliba uu cabiri karo waxqabadkiisa si loo ogaado haddii isbeddel loo baahan yahay si loo gaaro ujeedada u degan ganacsiga. gunaanad, ogow social business ama ganacsi bulsheedka inuu yahay qaab aan ku abuuri karno faa'iido, sidoo kalena aan ummadda baahideeda badeecad ama adeeg aan ku haqabtiri karno. insha Allah marka soo socota ee aan rabno inaan ganacsi abuurno aan ku abuurno niyad ah sidii aan ummadda ugu adeegi lahayn, sidoo kalena aan faa'iido uga soo saari lahayn si uu ganacsigeena inoogu barakoobo ummadana ay baraaro uga dhaxasho. mahadsanidin waa inoo mar kale haddii Rabbi idmo.